isku dhacyo iyo cabsiyo laga qaba dagaalweyne saddexaad oo dunida ka qarxo kaasoo ay sababtay maadaama uu jiro Russia iyo Ukraine khilaaf u dhaxeeya iyo ciidamada Ruushka oo muujinaya diyaar garow aad u ballaadhan taasoo cabsi gelisay dunida oo idil sida la filayo madaxweynaha dalka Mareykanka Biden ayaa maanta oo axadaha ku dhawaaqay in la saadaalinayo in Russia ay faragelin military ku sameysay Ukraine 22 bishan February ciidamada Ruushka ayaa sameynayay diyaar garow ugu ballaadhnaa ilaa dagaalkii labaad ee dunida kadib ayagoo 100,000 oo ciidamada kala qaybihiisa kala duwan iyo agabka military ay ku jiraan gantaalada difaaca kuwa istaraatiijiga iyo tacticada ee goobaha mucayiman iyo kuwa gurguraya lagu duqeeyay Russia waxay geysay xuduud ay la wadaagtay Ukraine dhinaca dhulka iyo badaba ciidamada Ruushka ayaa u muuqdo in ay sugayaan kaliya amar kaga yimaada madaxweynahooda Vladimir Putin si ay howlgalkaasi u fuliyaan ciidamada NATO saaxiib la Ukraine ayaa dhabarka u jeediyay iyagoo ay bilaabeen in ay kala baxaan diblomaasiyiintooda iyo safiiradoodii u fadhiyay magaalada Kiev ee dalkaas Ukraine madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda mid mataqaanaa ay dhabarka u jeediyaan doonay inuu Russia kaga hor yimaado dagaal isla markaana bilaabay in uu diblomaasiyiintiisa iyo muwaadiniinta Mareykanka u dhashay inuu ka saaro dalkaasi iyadoo ay dunida dhan kala baxayso diblomaasiyiintooda iyo ergooyinkooda dalka Mareykanka oo la filayay inuu garab istaag ballaadhan siin doono Ukraine ayaa u muuqda maanta col horti jabay cigaal shidaad laga sheegay dalka Ukraine ayaa dadaal iskiya bilaabay ayagoo dad badan oo dhalinyaro 400,000 gaaraya la ciidameeyay isla markaana xuduudaha la geeyay balse sidaan ka warhayna awoodda Ukraine ayaan u dhigmin 10% marka la barbar dhigo Russia wadan codka fiitooga la kamidna wadamada superpowerka dunida ayaa imika u muuqda in uu dariskiisii dhibaato ku hayo waxaa la filayaa iyadoo dadaaladii diblomaasiyadeed iyo kuwii wada hadalka ee siyaasadeed dhammaan ay fashilmeen ayaa laga yaabaa in xalku sida la filayo uu noqon waayo iyagoo marka dambana ku diyaargarto dagaal dhiig badan ku qulqulo dhammaan wargeysyada dunida idaacadaha TV-yada baraha bulshada ayaa hadal hayo dagaalkaasi hadal hayntuna ma ahan in Russia ama Ukraine midkood la taageerayo balse waxa weeye dagaalweyne laga baqayo inuu dunida ka qarxo kaasoo saameyn doono kana gudbi doona qaaradaha iyo wadamo badan oo dunida gaar ahaan wadamada reer Yurub ayaa intooda badani waxay wadaan abaabulo ciidan oo aan saa u sii buurnayn oo ah qowda maqashiyo waxba u qaban oo doonaya Ukraine inay dagaal gasho isla markaana taageerada ay siinayaan la iska garanayo inuu yahay mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo aan saa u sii buurnayn balse dalka Ukraine ayaa ku qabsatay qadar Allah waa la qaataa xaaladiisu ay tahay mana hursanayaan inay isdifaac muujiyaan ilaa inta tabartooda loogu yimaado guryaha Russia oo wadan boqortooyo hore weyn isla markaana kamid ahayd wadamadii dagaalkii labaad ee dunida guulaha faraha badan ka soo hoyay ayaa haatan u muuqdo in uu faraha la sii galay dhiig daato sababtuna waxay ka bilowday saameynta dalka Russia oo hoos u sii dhacaysay iyo wadamadii midowgii Soviyeeti kamid ahaan jiray oo niyadta isku sii ballaarinayso ciidamadii NATO ee la oran jiray liwaxyada Soomaaliyeed ayaa maanta u muuqdo sidii kuwa bisado ka cararayo shabeel meel soo galay hase yeeshee waxaan eegi doonaa meesha ay ku biyo shubtaan colaadaha socda ee dunida maanta ka holacyo halka aad naga daawanaysaana waa xogta dunida